السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal goor kasta iyo goob kasta ay joogtaan wanaagsan waa barta dhaymaale aad kaga barateen inaad alaaba kala socotaan suganta Soomaalida kuwii hore iyo kuwii dambaba waxaan inii haynaa gabagabadii iyo gunaanudkii dagaal suganeedkii u dhaxeeyay suugaanyahanada Soomaalida ee bilowday 26 bishii Juun kana bilowday magaalada Hargeysa saameeyayna dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaan soo qaadanaynaa heestii lagu soo gabagabeeyay iyo qalad ay galeen howlaladii soo xiray dagaal suganeedkiisa muuqaalkeena maanta ayaan kaga hadlaynaa waxaa maalintii shalay ahayd soo baxday hees ay qaadeen howlada qaranka ee waaberi heestaasoo uu sameeyey alabuurkii weynaa ilaahay cimrigiisa raajiyey barre maxamed fiidow leento heestaasoo ah fariin weyn oo ay dirayaan howlada qaranka uguna hadlayo hal abuuradii iyo howlada Soomaalida ee qaybta ka ahaa furinta iyo dagaal suganeedkii dhawaanahanba dalka ka socday waxay heestan fariin weyn u tahay oo lagula hadlayaa hal abuur kasta oo Soomaaliyeed oo maanta nool sidoo kale heestan ma aha hees cusub heestan oo dad badan aanay garanayn oo dhigahooda ku cusub tahay u maleeyana hees cusub oo aan arkay lagu soo qoray beejid waaweyn hees cusub ay soo saareen howlada qaranka waxaan bayaaninaynaa cadeynaynaa inaanay heestaanu ahayn hees cusub heesta waxaa sameeyey sidaan hore u sheegnay barre maxamed fiidow leento waxa uuna sameeyey horaantii sagaashanaadkii barre waxaa ku kaliftay inuu heestan sameeyo markuu dagaalka dhacay waxaa jabhadihii dalka ka dagaalamay la kala saftay howgaladii ugu waaweynaa dalka iyo hal abuuradii safka hore ka ahaa anoon sheegaynay magacyadooda laakiin waxaa maaragtay dagaal qabiileedkii dalka ka dhacay qayb ka ahaa marka la dhaho abwaan hala tiriyo kuwii la dhihi lahaa 1 iyo 2 iyo marka la dhaho fanaan hala tiriyo kuwii la dhihi lahaa 1 iyo 2 ayaa qayb ka ahaa dagaaladii jabhadaha barre maxamed oo nin daayar ahaa xilligaas ayaa la maaragtay walaalihii ama saaxiibadii qaarkoodna ka waaweynaayeen qaarkoodna ku da ahaayeen kula hadlayay heestan waxaan lagu qaaday dalka Denmark waxaa saf ku qaaday ilaahay u naxariistay qadar daahir cige ibn maxamed maryam mursal la foole iyo xaga xasan tooxow iyo cabdinuur alaale heestaasi oo markaasi xaaladda markaa dalka ka taagneed ka hadlaysay digniin u ahayd hal abuurada Soomaalida inaanay horin oo in qayb ka noqonin waxa socday ayaa haddana noqotay hees maaragtay la jaan qaadi karta xilligan maanta aan joogno maadaama dhibaato kasoo dalkan maaragtay haysatay ay ka marnaayeen hal abuurada iyo howlada ka marnaayeen dhexdhexaad ka ahaayeen oo isdhex qaadi jireen qolyaha fanaaniinta ayaa maaragtay dhexdoodii dhibaato ka dhacday bishii maaragtay Juun dhamaadkeedii iyo horaantii bishii Juulaay waxaa maaragtay howlada qaranka u arkeen in heestan ay tahay haddana xilligii kale ee munaasabka ahayd in la nooleeyana ay tahay waxa ay qaadeen heestii waxaa maaragtay ayna ku dareen erayo cusub waxayna ku qaadeen saf waxaa maaragtay xusid mudan inuu safka hore ka ahaa oo ku jiray maxamed xasan xuseen la foole ahaana hobol ka mid ahaa hoboladii qaaday asalkeedii hore markii heesta la qaadayay 28 sano ka hor waxaan soo qaadanaynaa tudciyada ama beedidka aan isleenahay waa fariinta ugu culus oo hal abuur kasta oo Soomaaliyeed oo ay tahay inuu ogaado niidiisana ku degsado runtii waxaa maaragtay tilmaamahaas wanaagsan ku tilmaama barre maxamed fiidow oo ninkii heestan sameeyey 50 sano uu ku jiro fanka Soomaalida marna laguma hayo oo laguma arag maaragtay iyo maaragtay nin jeclaysi iyo maaragtay gobol jeclaysi weligiis maaragtay barre aan ku dhicin waxaan soo qaadanay dhowrka tudcaan isleenahay way ugu mudan yihiin aan ku horeyno tudcaan hal abuur haddaa tahay murtiyo huriyo suugaanta waa inaad ka hadashaa dhacdada heerka dunidaaye horeysiya dambeysaba waa inaad ka hal abuurtaaye filin toosan iyo hagaag waa inaad wax u tilmaantahay hal abuurihii daacado hiiltar shacabkaaga runtii tudcaan oo maaragtay abwaanku ku sheegay in qofka hal abuurka ihi hadduu hal abuurnimo sheeganayo murtina hurin karo waa in uu maaragtay uu ka hadlaa dhacdooyinka dunida horeysii dambeysaba tii horena uu kusoo halqabsadaa tan dambana maaragtay hoga tusaaleeya ummadda wax ugu sheega isagoo weliba adeegsanayo hilin toosan iyo hagaag tudcaas halkaas ayay la mareen runtii waana munaasab in xilligan Soomaali loo iftiimiyaa haruub raaca quureed gacmaha looma hoorsado ha u xilan hunguri hamadu waa midaan kaa bixine hanti booli kugu soo gashaan lagu haraad goyne adigoo hamuun qaba hayso magacaage hal abuurihii daacado hiiltar shacabkaaga habkii ina suldaan waa inaad hiibad mudutaaye ama sidii naftii hore barqaad cas waa inaad xiga xirataaye xornimada horteed qaasimkii hoobaleyn jiraye haliyey cali xuseen waa inaad ka hidda raacdaaye wuxuu leeyahay waa inaad sidii cabdullaahi suldaan timcadde wuxuu soo qaadanayaa 3 hal abuur oo waaweyn oo Soomaali dhexdeeda magac iyo mug iyo miisaan ku leh sharaf iyo karaamana ku leh
sidoodii waa inaad naqataa ayuu leeyahay. haddii aad hal abuur tahay waa inaad ku dayataa ina suldaan sidiisii waa inaad heybad mudataa ama naftii hure barqad cas. barqad nin hal abuur Soomaaliyeed uu ahaa, magaciisa oo dhammaystiran waxaa la dhihi jiray maxamed ismaaciil baasarax. wuxuu leeyahay sidii barqad cas waa inaad maaragtay naftii hure barqad cas hayga xiratahay amase qaasimkii xornimada horteed qaasimkii hoobalayn jiray. wuxuu u jeedaa qaasim hilowle oo xornimada horteed kontonaadkii raadiyo muqdisho dadka maaragtay ka maaweelin jiray oo ka hoobalayn jiray, ama sidii maaragtay xornimada horteed qaasimkii hoobalayn jiray. haliyey cali xuseen waa inaad hidda raacdaa. wuxuu leeyahay waa inaad cali xuseen aad hidda raacdaa oo sidii maaragtay halgankii iyo dagaalkii u galay dalka waa inaad maaragtay samaysayo oo aad dhankiisii aad noqotaa. hayb qabiil iyo adaanku hamiyey beene, haluulaha jahliga adaanku hindasoonayne, dhaqamada haraaga adaanku hilba ruugayne, adigaan hareeraha uga bixin hilinkii toosnaaye, hadduu jiro xushood adaa weli huban ammaantiiye, hal abuurihii daacadow tar shacabkaaga. heestaas ay qaadeen fanaaniinta qaranka gobolada Waaberi waxay kusoo gunaanudeen oo kusoo gabagabeeyeen dagaal sugaaneedkii maaragtay ereyada maaragtay culculus la isku adeegsaday ee la yidhi xamar baa iyo cadow ah, beesha maxaaraad rabtaa maaragtay iyo maaragtay garowga maaragtay xintinta intaasoo maaragtay waxaa maaragtay aan ummadda kala qaban maaragtay hore isugu quuri jirin isugu quureen ayay tan maaragtay biiraacin u tahay maaragtay qalbi dhayid u tahay maaragtay ummadda dhexdooda maslaxa iyo nabad ay u tahay oo la leeyahay maaragtay intaas ay kugu ekaato hal abuur Soomaaliyeed ha hurinina dhibaato maaragtay ummadda aan xamili karin oo ku darsan karin ha maaragtay u saarinina. meeshaan isleeyahay alla ilaahay qalad weyn baa ku jira oo gobolada qaranka ay ku gefeen waxay tahay heesta kooriskeeda. wuxuu ahaan jiray xilligii hore 30 sano ka hor markii maaragtay ay qaadayeen goboladii hore ee Waaberi ay qaadayeen. kooriska heesta wuxuu ahaa hoobalyaa wadanigii dhabto hiltar shacabkaaga, hoobalyaa wadanigii dhabto hiltar shacabkaaga. meeshaas ay bedeleen oo ku bedeleen hal abuurihii daacadow hiltar shacabkaaga. waxaa laga yaabaa in abwaanku naftigiisa maaragtay qayb ka ahaa bedelitaankan haddii isaga uu maaragtay uu la og yahay oo dayactirka heestan uu qayb ka ahaa. runtii ceeb maaha, waa iska caadi, laakiin waxaa ceeba oo foolxumo ah oo maaragtay lama qaateen ah in abwaankii oo nool oo magaaladii xamar ku sugan in heestiisii ay dayactirtaan oo wax ku kordhiyaan waxaan ka dhimaan. waana qalad sugaan ahaan marka la dhaho aad baa loo diidaa waxaas maaragtay verbatim ayaa la dhahaa in la ilaaliyo qofka sugaantiisa in la ilaaliyo sidii asagu u sameeyey inaad kusoo qaadataa, haddeen kuga anficayn inaad tu kala samaysataa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna muuqaalkeennii maanta. Soomaali nabad waa.